Hello, ii waran xaaladaada. Waan kuu fiicannahay, xaaladeydu waa okay. Boowe, waxaan rabaa inaan wax kuu sheego. Okay, waad ii sheegi kartaa ugu horeyn laakiin isku kay sheeg yaa tahay adiga. Lambarkaaga si dhib ah ayaan ku helay. Waxaan rabaa inaad garab i siiso. Haye waa yahay, garab noocay u baahan tahay oo aan kaa caawiyaa. Waxaan ahay qof wax jecel. Mar walba markaan adiga ku arko, farxad ayaan dareemayaa. Codsigaaga ma wuxuu ahaa inaad jecel ii sheegato? Taasi waad ku qaldan tahay. Run ahaantii aniga jecelka waan aaminsanaa, balse hadda ma aaminin. Waayo waxaan ku tusaale qaatay laba qofood si xad dhaaf isku jecel, Xabso iyo Rashka Boy. Waayo jecelkooda meeshii ugu dambeeyay ayaan arkay. Igarana noq walaalay, aniga jecel tabarteyda maahan. Jecelkayga ha ka dhigin sidii Rashka Boy iyo Xabso kale, balse waxaan kuu ballan qaadayaa saacad walbaba, daqiiqad walbaba, ilbiriqsi walbaba, garabkaaga inaan sii taagnaado. Soo kuma dhihin ereyga jacayl anigu waan ka aamin baxay. Ma doonay mana aqbali doono adigoo xumaan ii fahmin. Waxaa wado dib ula noqo, waayo tusaale igu filan waan haystaa. Weligayga waxaan aaminsanaa labadan qofood sida xad dhaaf isku jecel, marnaba dunida inay isku cidleen doonin. Laakiin saasay tahay, qof walba murug ayuu ku nool yahay. Dadkan waxay u maleynayaan farxad inay ku wada nool yihiin. Boowe, ha iga diidin. Aniga runta ayaan ka hadlayaa. Dhedheel ma wado, dhalanteedna ma aha, laakiin si dhaba ayaan kuu jeclahay.